waxaan rabaa inaan u sheego caalamka iyo international community-ga anigoo ku hadlaya magaca qowmiyadda direed ee geeska Afrika anigoo ku hadlaya afka beesha Biyamaal waxaan rabaa inaan u sheego Maama Saade Cali Warsame cidii ka dambeysay oo dishay waxa ay ahaayeen labada nin la kala dhaho magacooda imaamka beesha Habagedir Cabdullaahi Khaliif Roble iyo Nabadoon Axmed Diiriye oo sheegta afhayeenka beelaha hawiye waa dad macquul ah laakiin afhayeenka beesha Habagedir Axmed Diiriye oo nin nabadoon isku sheegay oo nabadiid oo kaabalaadare oo Mooryaan isaga ka dambeeyay isagoo adeegsanaya wiilal Mooryaan ayaa ka dambeeyay waxa dilay Saade Cali Warsame Allah u naxariistay marxuumada waxa ka dambeeyay labada nin la kala dhaho imaamka beesha Habagedir Cabdullaahi Khaliif Roble iyo Nabadoon Axmed Diiri xilka madaxtinimada Xasan Sheekh Maxamuud uma qalmo madaxweyne xildhibaan kasto oo raba inuu raygiisa ka hadlo wadada dheer ee Maka Mukarrama ayaa lagu dilayaa assassination ka batay marka waxaan u sheegayaa cid kasto oo ku dhaqan Minnesota oo Soomaali ha ka soo qayb gasho banaanbaxa guryaha ka soo baxa ha baqina